asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibada qiimaha badan, waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono ciyaaraha meel kasta aad joogtaan. fiid wanaagsan. haddaad janaalka aarka sportska cusub tahay, sabskaraab saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada soo socda. muuqaalkan shirgaraya la wadaaga saaxiibada ciyaaraha xiiseesa si ay ugu soo biiraan mahadsanidin. soo dhowaada mar kale. haddii aan ku bilowno muuqaalkeena caawa, laacibka kooxda Manchester City iyo xulka England Raheem Sterling ayaa shaaca ka qaaday inuu ka fiirsan doono inuu ka tago kooxda haysata horyaalka Premier League ee Manchester City, asigoo aan sidoo kale meesha ka saari doono inuu aado koox ka baxsan horyaalka Premier League. xidiga 26 jirka ayaa wajahay mustaqbal shaki ku jiro, asigoo ku dhibaatoonayo inuu boos ka helo kooxda kadib markii imaatinkii Jack Grealish. Sterling ayaa ciyaaray xilli ciyaareedkii toddobaad ee Man City, laakiin wuxuu muuqdaa inuu ka baxay qorshaha Pep Guardiola, wuxuuna qirtay inuu u furan yahay inuu iskaga tago kooxda Manchester City. asigoo ka hadlaya shirka Financial Times ee ganacsiga sportska Mareykanka, Sterling wuxuu yiri, haddii ay jiri lahayd fursad aan ku aadi lahaa meel kale, waxaan u furnaan lahay waqtigan la joogo. ka ciyaartooy England, waxaan ognahay in horyaalka Premier League mar walba uu yahay mid ka adag. waxaa laga yaabaa maalin inaan ka ciyaari doono meel ka baxsan England haddii aan fursadaas helo, ayuu sii raaciyay laacibka kooxda Manchester City iyo xulka England Raheem Sterling. wakiilka Rafinha ayaa shaaca ka qaaday in Liverpool ay xiiseynayso weeraryahanka kooxda Leeds United. xidiga 24 jirka ayaa qaab ciyaareed fiican soo dhigay xilciyaareedkan, ayaa laga wacay waajibaadka xulka qarankiisa kadib markii uu dhaliyay 9 gool, 9 kale caabiyay tani ilaa markii uu yimid kooxda xagaagii 2019. kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa la xiriirinaya labadooda xidiga si ay u dhaqaaqaan saxiix xidiga reer Brazil, laakiin xidigii hore ee Chelsea Diego. wakiilka Rafinha ayaa sheegay inay kooxda club ee ku horeyso beecsiga loogu jiro xidiga Rafinha. xaqiiqdii waxaa jiro kooxo badan oo xiiseynaya asaga. Diego ayaa u sheegay Koloba Liverpool way jecel yihiin asaga, waxaana jiray xiriir aan la sameeyay, laakiin ma jiraan wax dalab ah. Leeds waxay doonaysaa inay sii haysato xidiga xiriiraad kale. Rafinha wuxuu ku faracsan yahay Leeds United, laakiin waxaa jiri doono waqti uu ku tagi doono kooxda si horay ugu wado xirfadiisa kubadda cagta, ayuu sii raaciyay wakiilka xidiga Rafinha. tababarihii hore kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa magacaabay xidiga u qalma ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or sanadka 2021. waxaa la shaaciyay liiska 30 xidig u tartami doonto abaalmarinta sanadkan, iyadoo la bixi doono 2 abaalmarin. Ballon d'Or ayaa la bixi doonaa 29 November kadib markii la baajiyay abaalmarinta xidigii hore sabab la xiriira xanuunka coronavirus. asigoo warbaahinta ka hadlaya xalfadda soo socota Ballon d'Or, Sir Alex Ferguson ayaa yiri, Cristiano Ronaldo wuu u qalmaa sanadkan, wuxuu jebiyey rikoor ka dambeeya. xidiga kooxda Paris German Lionel Messi ayaa la rumaysan yahay inuu ugu cadcad yahay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or 2021 kadib markii uu xilkiisa Argentina ku hogaamiyey hanashada Copa America 2021. dhanka kale, waryahanka kooxda Bayern Munich Roberto Lewandowski ayaa u badan tahay inuu ku guuleysto 2020 kadib markii qaab ciyaar cajiib ah soo bandhigay xilciyaareedkii 2020. asxaabta nadaamanaysa waxaa idinka codsanayaa inaad muuqaalka sheergareysaan, la wadaagtaan saaxiibada ciyaaraha xiiseesa si ay ugu soo biiraan. Mohamed Salah ayaa tallaabo u qaaday si uu heshiis cusub ugu saxiixo kooxda Liverpool sida lagu sheegay wararka. heshiiska xidiga reer Masar Mohamed Salah ayaa Liverpool dhici doono ilaa xagaaga 2023, waxaana jiro warar ku saabsan mustaqbalkiisa iyadoo aan kooxda weli wax heshiisa u soo bandhigin. kooxaha Real Madrid PSG ayaa la xiriirinaya saxiix Mohamed Salah, kaasoo dhiilgoolkiisii 100aad Premier League bishii hore. sida laga soo xigtay Football.com, Liverpool ayaa haatan isku diyaarinaysa inay 29 jirkan u soo bandhigto heshiis cusub oo ku qaadanayo 350,000 oo gani isbuucii. waxay doonayaan in heshiis ay ka saxiixdaan xidiga reer Masar ee Mohamed Salah. wararka ayaa sheegaya Salah inuu doonayo inuu sii joogo kooxda Liverpool, wuxuuna qalin ku duugi doonaa heshiis ilaa
26 markaasuu gaari doono 34 sano jir. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.